cabdiqaadir uma ku socda anigu ugaasi ku soco si toosa aad iyo aad si toosa ugu soconaya kabahan si toosa u xiranaya haye waxaan ahaa gabadh waxaan joogay magaaladii laygu dhalay hooyaday aabbahay deganaayeen hooyaday anoo 10 jir ay dhimatay ciyaalkayga anaa u weynaa anaga koriyey haye ciyaalkii haddaan koriyey aniguna markaa gabadh weyn aan ahay oo maaragtay ciyaalka u weyn ciyaalkayga anaa koriyey 4 caruur iyo aniga 5 baanu nahay haye aabbahay xaas kale iska guursaday reer kale iska samaystay nima uusan daryeelin markaas haye laakiin maadaama hooyaday noo shaqayn jirtay shaqadii hooyo anaa qabtay allaha u naxariisto hooyo ciyaalka sidii baan ku koriyey waxaanu isbaranay nin meel aliya meel uu ka yimi markaana qiyaasi laakiin ii sheegay inuu ka yimi Yurub haye inanka markaan isbaranay muddo wada sheekaysanay waxaa dhacday inaan maaragtay guur ku heshiinay aabba markaa uu iga soo doonay aabbe markuu iga soo doonay aabbahay ninkii waa eryaday oo waaba ii diiday hadduu ninkii ii diiday mar labaad baan isidhi bal haddana ku qanci 2 bilood kadib aabbahay haddana ninkii waa ii diiday wuxuu igu yidhi in caruurtiina hayso oo reerka la joog yacni ma guursan kartid haddeer ninkii wuu soo orday maxaa xalay buu yidhi ninkan waa israbnaa xoog baan isku rabnaa waa ismeher xadnay ama waa isqudbasiraysanay ma nin baa nin lama qudbasiraysta aniga iyo ninkii aabbahay ii diiday isqudbasiraysateen haa haye haddaan isqudbasiraysanay muddaan meeshii uu joogay wuxuu yidhi waa noqonayaa maxaan ku idhaahdaa halkaasaad ii joogaysaa aabbaha intuu ka ogolaanayo haddaad uur yeelatana dee ilmahayga anaa dhalooday oo ku qaniinayba haa u ka adeegtay aad maxaa isku guursanayna haddaa haye acuudu billaahi min ashaydaani rajiim yaa markaa cabdiqaadir oo ninkii markaa waa tegey aniga markaa wuxuu igu yidhi Yurub baan ka imi wax Yurub uu ka yimina ma jirin adigu ninkii dib oo u dambaysan waan waaye waa soo hadli waaye uurna maan yeelan laakiin waa laysii qaniinay oo keliya marka waxaa dhacay caruurtii walaalahay inay iska kala dadka waxaa weydiinaya maxaa lagu dhuftay see laygu dhuftay waa astoolad miya sheekadu aniga iguma dhaxaabi gabadhan xabadda ma weydiin haye ku soo waxaa dhacday inaan ninkii aan waayey uu soo hadli waayey ay ka soo wareegtay muddo 10 sano ah aan sidii ninkii ugu maaragtay ugu mehersanahay caruurtayadii iska kala waaweynaaday qaarkood iska guursaday qaar wayba shaqeeyaan aniga lacag yar baa urursaday maadaama ciyaalkiina koreen waan soo tegey Afrika imaaday halkaa iyo Afrika haddaan Mozambique baan imaaday waa xoogay lacagana waan watay 2 wiil walaalahaya markii dambe reerka aad ugu shaqayn jiray oo lacagta ii dhiibi jiray oo anigu waa shaqaysan jiray gabdhaha inan waa la guursaday iyadna lacag bay reerka keeni jirtay adigu waxbaan isku jacsiistay waa soo tegey 10 sano waa laga maqan 10 sano ninkaa waa ilaaweyba laakiin de meher baa igu xidhan haye kaa qaada Faadimo waxaa igu xidhan meher baa igu xidhan nin ma shukaansado maaragtay cid haddaan idhaahdo waaba lay qabaa iga fura waaba layla yaabayaa dee aabbana waan ka baqanayaa marka waan iska soo tegey Mozambique baan imi waan shaqaystay markii hore meel yar oo dukaanaan ka shaqayn jiray dukaankii adigu lacag xoogay baan ka urursaday walaalahayna wiilashu biil bay halkaa igu soo diri jireen
igumay halin jirin waan shaqaystay waxaas haye muddo haddaan joogay sheekh baan u tegay sheekh baan u sheegay waxaan ku iri nin caynkaasan 10 sano ka hor guursaday weliba guur aan aabahay ogeyn inkastoo aan aabahay 2 jeer iga soo doontay uu diiday ninkii intaasoo sano ma hayo inuu dhintay inuu nool yahay ma ogi warqad fasakhaad adigu lay sameeyay waxa la yiri waa guursan kartaa iminka haye meherkaas ma koro waxba ka jira badi waxa kama jiraan bay anigu niyadayda waxa marsilay waxba ka jiro waan maaragtay waa ku dhici waaya inaan nisho kaasado haye oo iman qabtay marka diiniya aad iyo aad wala meherxad oo sameeyay wala iman qabtaa marka waa sida anigu marka iga dhaadhacsan haye marka waxaan sameeyay inaan baysbaranay marka ani marka dukaan baan yeeshay oo dukaan weyn baan ka shaqeeya aan leeyahay aan samaystay waxa iga shaqeeya 2 gabdhood wiil iyo gabar baa iga shaqeeya gabadhna anay guriga markaan oo sii raacnaa oo soo raacnaa guriga ay joogtaa nin baa markaa isbaranay isna alaabaha maaragtay keena wuxuu keenaa gawaadhida ku keena alaabaha jumlada ninkii baa isbaranay waa wada sheekaysanay ninkii haddaan wada sheekaysanay wuxuu igu yiri aan isguursano waxaan xoogay anigu guurkii markaa aan ku aan si fiican isku barano nin kale aan si fiican isku barano guur wuxuu igu yiri aan isguursano waxaan ku horta aan si fiican isku barano aan waqti wada qaadano waayahay buu yiri waqtigii baan iska wada qaadanay waa ishukaansanay in muddo ninkii baan isguursanay markaas haye ninkii haddaan isguursanay aabahay buu la soo hadlay aabahay wuxuu igu yiri naa orad naga tag maalin walba nin han olay hadda waa 10 sano kadib haddana nin ulay waa ii diiday wiilashii walaalahay baan ku yiri aabe maxaad leedahay anaga ku siinayna buu yiri aabe ka gudub arrimihiisa walaalahay baa ninkii ii meheriyay isiiyay halkii baa ninkii ku kala aqal galay waxaan u dhalay dhowr caruur aan u dhalay caruurteydii baan iska haystay halkaygii baan iska joogay dukaan kale ii dhalay gabar lacag leeya baan noqday noloshii halkii bay maaragtay kaale iska arag dukaan ahaan odaygayga haya midna aniga haya iyo shaqaalayaasha halkii aniga oo noloshu macaan ii tahay oo maasha Allah tahay oo wiil walaalkaya ee soo kaxeeyay oo maaragtay halka uu ila shaqeeyo aniga wiilka walaalkay oo gabadh ugu guuriyay oo halka gabadh ugu aroosay oo noloshu waxaan ku yiri maasha Allah noo tahay ayuu ninkaygii haf intuu yiri gabadh guursaday aanan ogey haye markuu gabadh guursaday ayaan soo ogaaday horta intaan ogaan wuxuu igu yiri xabi waxaad samaysaa aniga iyo nin saaxiibkay horta soo ilaahay afar rag oo mu baneen maxaa idinku haddii uu guursado soo caadi maaha bal ku soo sheekooyin kuwa nin way la guursaday wadamar haddii la idin la guursaday iimaansadati maxaa qaldan ma iimaansataan haye ayuu wuxuu igu yiri nin aan saaxiibnahay baa guursaday marka xabiibi maanta waxaan rabaa beritoole inaad maaragtay gurigaan ugu qada karino anaga iyo saaxiibka iyo xaaskiisa markaas waayahay baa ku dhahday haye imsa raba inaan la guursan imsa dumar raba inaan la guursado imsa diidan ku soo waayahay baa iri gurigii baan kala kiciyay anigii baa iskala kiciyay hal bitaabaan sameeyay kaala iska arag waxa noo yimi gabadh iyo odaygayga iyo wiilkii saaxiibkii cuntadii baa la wada cunay cuntadii baa maaragtay kaala arag gabadhani lamaba sheekaysanaysa ninka laleeyahay wuu qabaayo kayga la sheekaysanaysa ninkan iyada qaba lama sheekaysanayso yaa ii nimid ku soo cel halkaa odaygayga wuxuu igu yiri xabiibi waxaad samaysaa saaxiibkay baa guursaday isaga iyo xaaskiisa waxaan rabnaa inaan u qada karino beritoole haye waayahay baan ku yiri qadadii baan sameeyey gurigii baan hagaajiyey gabadhii iyo odaygaygii iyo odaygeydii baa soo raacay markaa odaygayga saaxiibkii iyo gabadhuu guursaday cusbayd
gabadhani markaan miiska qadada fadhino gabadhani ninkaygala